بسم الله الرحمن الرحيم anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya magaca ra'iisul wasaaraha iyo kan xukuumadda dawladda Soomaaliyeed waxaanu cambaaraynaynaa ficilka argagixisada ee bahalnimada ee kooxaha nabadiidka ee u soo jeestay inay shacabka Soomaaliyeed ku hayaan dib iyo dil iyo dhac iyo boob joogto ah ay maanta ka sameeyeen barkoortolool oo ku taala daljirka Dahsoon wasaaradda caafimaadka halkaasoo ay ku waxyeeleeyeen dad badan oo barakacayaal ah oo meesha degan iyo sidoo kale mas'uuliyiin dawladda uu ka mid yahay Allahu naxariisto Xuseen Ceelaabe Faahiye oo ahaa madxaf ama kayd qaran muddo badan ka soo shaqaynayay hay'adaha dawladda gaar ahaan wasaaradda qorsheynta sidoo kale waxaan taxsiin u dirayaa Cornel Faye Cali oo ahayd sarkaalad ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo hawlkar ah iyada iyo ninkeedii oo la socday ay ku dhinteen waxaan u diraynaa taxsi iyada iyo qoyskii iyo caruurtii ay ka tageen dawladda ayaa daryeeli doonta insha Allah tacaala iyo mas'uuliyiin kale xildhibaano ku socday baarlamaankana sida la sheegay dhaawacyo fudud ay ka soo gaareen waxaanu taxsi u diraynaa intii ku waxyeelowday shacab iyo mas'uuliyiin intaba waxaanu leenahay ilaahay intii ku dhimatay jannadii firdawsa Allah ka waraabiyo gacan ka xaq daran baa dishay maalin Ramadaana iyagoo sooman sidoo kalena inta ku dhaawacantay ilaahay ha u dhaayo boogahooda oo ilaahay u fududeeyo waxaanu ciidamada qalabka sida oo runtii nafurayaalka ah habeen iyo maalin u taagan inay dadka Soomaaliyeed ka badbaadiyaan boqolaal dhagarood oo kuwaas la mid ah aanu ugu hambalyeynaa shaqada ay hayaan waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay xoojiyaan amniga magaalada madaxda dalka ee Muqdisho iyo dalka oo dhan inay xoojiyaan dalka Soomaaliya oo muddo badan iyo dadka Soomaaliyeed oo dhibaato ku soo jiray waxay xaq u leeyihiin inay ka baxaan dhibka waxay xaq u leeyihiin inay nolol fiican oo amniga ku noolaadaan kooxaha argagixisada ah fursad kale ma leh waxay doonayaan inay ku noolaadaan waa dad argagixiso ah oo qaarkood adduunka kale ka yimaadeen oo doonaya inay halkaan weligood gabaad ka dhigtaan oo weligeed aynu dawlad la'aan ahaano weligeed nidaam la'aan ahaano weligeen dhib iyo dhiig iyo qarax ku jirno ayay doonayaan shacabka Soomaaliyeed waa inay gacmaha isqabsadaan waa inay kooxaha argagixisada dadkii Soomaaliyeed dhibaya magaalooyinkii la xoreeyay waxa loogu tagay dad baaba'san oo beerahoodii ay baabiyeen oo mustaqbalkoodii baabiyeen caruur Soomaaliyeed oo aan wax iskuula tagin dad Soomaaliyeed oo xanuunsan oo aan dhakhtar inay helaan awood u lahayn qaarkood waxay ku khasbeen inay raacaan oo waxay u haystaan qafaal bay u haystaan madax furashay u haystaan dadkii Soomaaliyeed iyo maata Soomaaliyeed oo baahan oo aan waxba haysan shacabka Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda dawladda Soomaaliyeed waxay ugu baaqaysaa inay u istaagaan inay la dagaalamaan argagixisada dalkooda ka xoreeyaan mustaqbal uma samayn karaan nidaam uma keeni karaan nolol uma keeni karaan marka wixii aan la hurayn waa in hore loogu dhaqsadaa ka xoreynta dalka Soomaaliya waxay ku xiran tahay dadweynaha Soomaaliyeed waxgaradka Soomaaliyeed aqoonyahanka Soomaaliyeed odayaasha Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed oo si hagar la'aan ula shaqeeya ciidamada qalabka sida dawladda Soomaaliyeed oo ah future kaliya haystaan waxaan ugu baaqaynaa annaku mas'uuliyadeeda inta ugu sarreeyay aan samayn karno mar walba samaynayna in shacabka Soomaaliyeed waxgarad iyo noocyada kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida la soo afjaro in nabadiidku halkaan gabaad ka dhigto argagixisadu inay Soomaaliya gabaad ka dhigato aad ba u mahadsantahay